dunidan aynu ku noolnahay waxaa ka jira 196 dawladood 24 dawladood oo ka mid ah beedka ay haystaan waxa uu ka yar yahay 1 kiiloomitir oo isku weer ah iyadoo aynu ognahay in bar ka mid ah dawladahaasi bad ahaan ay u dhigmaan xaafad ay leedahay dawlad kale haddana waxa ay leeyihiin wax soo saar la yaab leh assalaamu calaykum ku soo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boodle maanta waxaynu ka hadli doonaa 10 dawladeed ugu yar adduunka kaalinta tobnaad wadanka Malta jamhuuriyadda Malta waxa ay ku taalaa badda Mediterranean-ka waxayna ka kooban tahay 3 jasiiradood oo waaweyn bad ahaan waxay ku fadhidaa 316 kiiloomitir oo isku weer ah tirada dadka ku nool waa 255,000 oo ruux waxaana ay jirtay jasiiradani 7,000 oo sannadood kaalinta sagaalaad jasiiradaha Maldives waxa ay ka kooban tahay jamhuuriyadda Maldives 1,192 jasiiradood oo ku taala badweynta India inkasta oo badka jamhuuriyaddaasi yahay 298 kiiloomitir oo isku weer ah haddana 90 kiiloomitir oo isku weer ah ayaa ay bad ahaan ku fadhiyaan jasiiradahaasi waana wadanka bad ahaan ugu yar qaaradda Asia tirada dadka ku nooli waa 250,000 oo ruux waana goobaha dalxiiska ugu badan loo tago kaalinta sideedaad jasiiradaha Saint Kitts and Nevis bedka guud ee jasiiradahani waa 262 kiiloomitir oo isku weer ah dawladani waxa ay ka mid tahay dawladaha ku yaala badda Caribbean-ka waxaana ay ka kooban tahay 2 jasiiradood oo kala ah Kitts iyo Nevis wadankani waa kii ugu horeeyay ee la gumaysto wadamada harsada badda Caribbean-ka waxaana helay Christopher Columbus sanadkii 1493 labadan jasiiradood waxaa ku badan volcaanica sida awgeed noloshoodu waa ay halis badan tahay tirada dadka ku nooli waa 57,000 oo ruux kaalinta toddobaad jasiiradaha Marshall waxaa lagu qiyaasaa badka jasiiradaha Marshall 181 kiiloomitir oo isku weer ah isla markaana waxa ay ku taalaa badweynta Pacifiga waxayna ka kooban tahay 1,156 jasiiradood dawladani waxa ay jooga dhulka ka sareysaa 2 mitir oo kaliya taasi oo ay suurtagal tahay in gabi ahaanba ay baaba'do haddii uu yimaado kor u kac biyaha badweyntaasi sidoo kale jasiiradii la odhan jiray Iligulaab ee ka tirsaneyd jasiiradaha Marshall waxa la waayay hal mar oo kaliya kadib markii ay dawladda Mareykanku gantaal hydrogen ah oo tijaabo ah la beegsatay badweynta Pacifiga sanadkii 1952 kaasoo keenay in biyaha badweyntaasi kor maraan jasiiradaasi tirada dadka ku nool jasiiradahaasi waa 53,000 oo qof kaalinta lixaad dawladda Liechtenstein bedka dawladani waa 160 kiiloomitir oo isku weer ah waxaana u dhaxaysaa labada wadan ee kala ah Switzerland iyo Austria waxaana ka mid tahay wadamada dunida aan haysanin wax ciidan ah waxaana lagu tiriyaa wadamada aan ka dhicin dilalku halka dilkii u dambeeyay ee ka dhaca uu dhacay sanadii 1997 warbixinaha quruxda badan leh ee ay haysato dawladani waxaa ka mid ah in yaraanta tirada dadka ku nool ee lagu qiyaasi karo 38,000 ee qof ay dhammaantood ka soo qayb galaan laguna casuumo qasriga madaxtooyada wadankaas ciidaha iyo dabaaldegyada wadanka kaalinta shanaad dawladda San Marino bedka San Marino waxa uu dhan yahay 61 kiiloomitir oo isku weer ah waxaanay ku dhacdaa xuduudka wadanka Talyaaniga waxaanay ku taalaa goob buuraley ah oo uu ku xayndaaban yahay dayr weyn oo u eg midka Chinaha oo kale tirada dadka ku noolina
waxa ay dhan yihiin 32,000 oo ruux. kaalinta afraad dawladda Tuvalu. bedka dawladda Tuvalu waxa weeye 26 kiiloomitir oo square ah. waxa ay ka kooban tahay 9 jasiiradood oo yaryar oo ku yaala badweynta Pacific, waana sababta uu ugu suntan yahay 9 xidigood calanka Tuvalu. waxa ay cabasho badan kala kulantaa bulshada ku nool jasiiradani kor u kaca biyaha badda, taasi oo sababtay in badi bulshada degan jasiiradaasi ay ka haajiraan. tirada dadka ku nool jasiiradaasi waa 10,000 oo qof. kaalinta saddexaad dalka Nauru. bedka dalkani waxa uu yahay 22 kiiloomitir oo square ah, waxaana uu dhacaa galbeedka dawladda Tuvalu, waana dawladda ugu yar ee ku taala badda Pacifiga. waa dawladda ugu booqashada yar dunida, waxaana lagu qiyaasaa tirada dadka dalxiisayaasha sanadkii 260 qof oo keliya. waxa ay ka kooban tahay dawladani hal jasiirad oo keliya. tirada dadka ku noolina waxa weeye 10,000 oo qof, waana dawladda keliya ee dunida ku taala ee aan lahayn caasimad. kaalinta labaad dalka Monaco. bedka dalkani waa 2 kiiloomitir oo square ah oo keliya. waxa uu ku yaalaa xuduudka dalka Faransiiska, waxaana lagu qiyaasaa in 56 daqiiqadood uu kaga goyoonayo qofku isaga oo ku soconaya lugihiisa. waxay isku calan eg yihiin calanka Indonesia, laakiin calanka Indonesia ayaa ka ballaaran kan wadankan. sidoo kale waxay isku lid yihiin ama ay iska soo horjeedaan calanka wadanka Poland. waxay caan ku tahay dawladani tartanada gawaadhida yaryar ee loo yaqaano Formula 1, kuwaas oo jidadka waaweyn ee magaalada loo xidho. tirada dadka ku nool waxa ay dhan yihiin 38,000 oo qof. kaalinta koowaad Vatican City State ama dawlad magaaleedka Vaticanku waa dawladda ugu yar adduunka. waa dawlad ka kooban hal magaalo oo keliya. bedka dawladda Vaticanku waa 4 kiiloomitir oo square ah, una dhiganta 61 garoon oo kuwa kubadda lagu ciyaaro ah. dawladani waxa ay ku taallaa xadka magaalada Rome, waana caasimadda dadka haysta diinta Masiixiga, halkaas oo uu ku nool yahay boobka kiniisadda iyo adeegayaashiisa gaarka ah. dawladdan iyadoo ay yar yihiin tirada dadka ku nool oo lagu qiyaasay 840 ruux oo keliya, haddana waxa ay leedahay baasaboor u gaar ah. xogta ugu yaabka badan ee ay leedahay dawladani ayaa ah inay leedahay madxaf weyn oo uu yaalo raadadkii hore ee qadiimka ahaa. haddii aad isku daydo inaad siiso raad kasta oo ka mid ah raadadkaas 1 daqiiqo oo keliya inaad kaga bogato, waxa ay kugu qaadanaysaa inaad 4 sano kaga bogato dhammaan raadadka yaala madxafkaas. intaa ayaynu ku soo koobi doonaa muuqaalkeena maanta. waad ku mahadsantahay daawashadaada.